dugsiga facaweyn ee Sheekh Yuusuf Al-Kawnin ee magaalada Burco ayaa 145 arday oo sanadkan u fadhiisanaya imtixaanaadka fasalada dugsiga dhexe sagwatiyay maamulka macallimiinta iyo ardayda dugsiga Sheekh Yuusuf Al-Kawnin ayaa munaasabad ballaaran ku sagwatiyay ardaydaasi munaasabadan oo ka qabsoontay barxadda dugsiga dhexe ayaa waxa ka soo qayb galay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe iyo mas'uuliyiin kale oo ka socda xukuumadda Somaliland ugu horeynba waxa duco iyo dardaaran ku sagootii ardaydaasi sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanaadka dugsiga dhexe ee Sheekh Yuusuf Al-Kawnin maamulaha dugsiga Caydiid Maxamuud Ciise ardayda hawshan qabsatay waa ardayda ay dharka ahayd waxay u baahan maanta in loo duceeyo duca ayay halkan u qabsadeen waxay nagu ducaynaynaa imtixaanka aakhiriyo ka adduunba Ilaahay u fududeeyo haddii dadku ay imtixaan bay malaakii wasaaradda bay diyaar garoobeen tii kale way jirtaa aakhiro marka waxaan leeyahay labadaba Ilaahay u fududeeyo Ilaahay waxaan uga rajaynaynaa guul gobolku ku faano dugsigu ku faano inay imtixaanka ka keenaan ayaanu Ilaahay uga rajaynaynaa uguna ducaynaynaa inta ka bacdi gudoomiye waxaan aad kaaga mahadnaqaynaa dugsi ahaan intii aad gudoonka joogtay waxqabadkii faraha badnaa dugsigan aad ka qabatay oo runtii muddo yar ahayd dhowr bilood waxayaguna halkaasi ka hadlay waalidiinta ardayda dugsiga Sheekh Yuusuf Al-Kawnin iyo ardayda wax ka barata dugsiga oo dareenkooda ku cabiray luqadaha kala duwan ee ay ka barteen dugsiga halkan waxaynu isugu nimi ay dharka sakootigoodii 2019 ka baxaya waxaynu rajaynaynaa guul iyaga iyo wasaaradda gobolka Togdheer iyo maamulkiisa waalidiinta waanu ka midnahay oo tacabada galiyay iskuulka iyo maamulkiisa maamula ku xigeenka waxaanu leenahay Ilaahay waxayna ka farxiyaa ardayda aad ka u faraha badan la sugayo ee dalku sugayo ee wasaaraddu sugayso ee waalidku sugayo ee maxay ay tahay aad iyo aad ka loo sugayo waxaanu ka codsanaynaa Ilaahay waxaanu ka baryaynaa in Ilaahay waxaan ku guusha gacanta ugu qabto ay u soo hooyaan Islamic greeting so peace of Allah be upon you. Secondly, I am greeting my respectable teachers and students. بعد السلام أرحب بكم مرحبا استضفتم أهلا وسهلا مكان وساعة أنتم أفضل كرامة أول الحمد لله تعالى الذي يستحق بالحمد وثنة المدارس والمعلمين. دكسي الشيخ يوسف الكوينون أرضي دقيقته وأرضي شرف له كرامة له أقول علم كله هاي وأذكر كيسا سيدا وناكسن sida sharafta leh maamuuska leh ee qiimaha leh inoo dhageysanaya gabagabadii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka Togdheer Maxamuud Xasan Caynaashe waxaana dugsiga Sheekh Yuusuf Al-Kawnin ku amaanay kaalinta lixaad kale ee ay ugu jiraan gobolka sidoo kalena wuxuu duco iyo dardaaran ku sagootiyay ardayda sanadkan u fadhiisanaysa imtixaanaadka dugsiga dhexe ee Sheekh Yuusuf Al-Kawnin dugsiga Sheekh Yuusuf waa dugsi taariikh leh wuxuu ka mid yahay dugsiga taariikhda waxbarashada gobolkan ku suntan wuxuu ka mid yahay dugsiyadii ugu taariikhda weynaa ee ugu cimriga dheeraa ayuu ka mid yahay waxa la doonayaa markaa taariikhda wanaagsan iyo magaca iyo sharafta uu lahaa in la ilaaliyo marbana ardayda ku jirta ay muujiyaan dareensanaadaan dugsiganu inuu leeyahay magac weyn ilaaliyaan taariikhdiisa ardayda maanta qalin jabinaysa ee imtixaanka sugaysa ugu horeyn waa idin ducaynaynaa Ilaahay waxaan idin ka baryayaa in aa kaalin mugle nolosha ka gashaan in Ilaahay idin fudaydiyo imtixaanka adduunyo iyo ka aakhiraba inaad noqotaan madaxdii iyo mas'uuliyiintii mustaqbalka inaad noqotaan ayaan Ilaahay idin ka rajaynayaa gabagabadii waxa halkaasi shahaado sharaf lagu gudoonsiiyay maamulka iyo macallimiintii muddada dheer wax soo barayay ardaydaasi iyo sidoo kale mas'uuliyiintii kala soo qayb galay madasha Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker Ariel TV Burco